maanta baadigu aad buu u qurux badan yahay. haa aad bay u deggan tahay. madaxay maanta halkaani aad ayay ii cajaabisay. hubaal geele maanta waan soo arkaynaa saaxiibteenna amiiro. geele weli ma aadan guursan miya? saxiib weli waan la ahay mid aan ku qabsado. madaxay aaway dumaashi in badan kuma arag magaalada. saxiib geelle dumaashi waan kala tagnay. amiiro waan ku salaannay. aaway xoolihii kale ma aragnay halkii ayay u baxeen xilligan. soo dhowaada saaxiibayaal, ka warrama magaalada. waxaanu qurux ah. madaxay saaxiib ma gudbe ayaan ahay. maxaan sameeyaa? baqdin darteed waan gariirayaa. ha baqin saaxiib, si deggan u joog. gabadhaan cusub aad bay u qurux badan tahay. baadiyuhu quruxdaanoo kale ayuu qariyaa. inna keen saaxiib aan soo tashanee ileen ma gudbe ayaa tahay. aan talooyin isdhaafsanno. inna keen saaxiib madaxay anigoo dhan ayaaba wareeraya. eeg saaxiibkayga geele aad ayuu kula cajabay. anigu reer magaal ma raba saaxiib, waxaan rabaa nin reer baadiye ah oo halkan joogi kara. saaxiib tan waa reer baadiye, ha baqin oo hadalka ku baro. war saaxiib waan baqayaa, xitaa dabka ima diirinaya anoo dhan baa maqan. fullay geele weli waa ma gudbe. saaxiib tan waa reer baadiye, ha baqin oo hadalka ku baro. war saaxiib waan baqayaa, xitaa dabka ima diirinaya anoo dhan baa maqan. fullay geele weli waa ma gudbe. adigu weligaa ma gudbe ayaad ahaan doontaa. yaa ku habaaray? ma sidaas ayaad magaalada uga timid? yaa hadlaya? kuma aragno. soo bax. caawa waxaan arkay wax aan aad uga xanaaqo. waa saaxiibkayga geele oo magudbinimo noogala imaaday magaalada. geesihii lagu yaqaanay awoowayaasha waa ceebaysay geelow. waa saaxiibkeenna Cawaale Madoobe. ii arag saaxiib, inaa kaalay aan wada hadalnee. maya Cawaale ma aha saaxiib, waa bahal caawana cuni kara. ka digtoonow madaxay. Cawaale ma adigaa? balaayo madow badan. geelow haddii aanan waanta ku aqoon lahayn waan ku cuni lahaa. fullayahow. Cawaale ma adigaa? balaayo madow badan. geelow haddii aanan waanta ku aqoon lahayn waan ku cuni lahaa. fullayahow. saaxiibayaal, sheeko ayaan idiin hayaa ee iga dhegaysta. waa sheeko ku saabsan saaxiibtiin amiiro. caawa waxaan arkay arrin aanan filayn, waana sababta aan idinku imid habeenkan. caawa waxaan arkay arrin yaab leh. waxaan dhex marayay baadiyaha habeenkii. waxay la joogtay Cali Aamin. Cali Aamin wuxuu isku dayayey inuu qalbigeeda dhowaado. waan la taliyey amiiro, waxaan ula baxay meel gooni ah si aan u fahamsiiyo khatarta, laakiin iyadu weli way ku adkaysanaysay. waxaan ku idhi aaminin waa waraabe. waxaan ku celiyey amiira ka joog arrintan. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinku arko baadiyaha maanta. teeda kale waxaan maqlaayay Cali Aamin oo qorshihiisa si degdeg ah u fulinaya. annagana waxaa muhiim inoogu ah inaan saaxiibteenna amiiro badbaadinno. ma waraabe ayay bilowday inay shukaansato? wallee amiiro waa ay soo waalatay markaan. ma waraabe? haddee waa waraabe iminka Cali Aamin ayuu la baxay soo maaha? magac ayaa ku bixiyey. waa magac hore, hadda kama helaan. saaxiib adeerkay ayaa ii bixiyey. wuxuu ii bixiyey isagoo xaasidnimo igu haya. weligiis wuu inecbaa. adeerkaas in caarafadda la qalo ayaan ugu tala galay. waan shirqoolay, laakiin waa uu iga badbaaday. ileem geele lama aadi karo. amraan awalba waan baqayey oo ma gudbe ayaan ahaa. magacayga ayaaba ka daran. saaxiib ha ooynin, annagaa magac kuu bixinayna. waa run, annaga ayaa kuu bixinayna magac qurux badan oo aad u soo jiidasho leh. kawran haddaan u bixinno waraabe dile. raalli ahow saaxiib. saaxiib haddii magacaasi uu ku dhibay, waxaan kuu doorannay magac cusub oo casri ah. laga bilaabo maanta waxaad tahay Leo. haa Leo waa magac qurux badan. Leo waa magac qurux badan. aad baad u mahadsan tihiin. iminka waxaanba helay kalsooni iyo farxad. waa xilli aan saaxiibteenna amiira arrinkeeda geli lahayn. inna keena. waa wakhtigii ay kulmi lahaayeen. soo dhaqsada aan aadnee. Leo saaxiib, marka aan xallinno arrinka saaxiibteenna amiira, waxaa inoo xiga qorshihii aan adeerkaaga ku mishiimi lahayn. saaxiib waa burcad weyn. waa inaan u tashanaa, ma sahlana. adeerka Leo waa maafiyada ugu weyn magaalada. dil, dhac, boob asagaa dhalay. wax u kala soocan ma lahan. hubaal waa mishiimi doonaa odaygaas. waxba ilama ahan. anaa aqaan burcad ka daran. halkaan igu suga dhallinyaro. caawa anaa idin casuumay. waxaan idin hayaa hilib dhaylo ah oo macaan. waa mid aan rabo inaan soo kaxeeyo caawa. marka iga warsuga. qof yahay in badan ayaan jacayl kuu sheeganaye, maxaad i leedahay aan isku yaacno?
si aan gurigayga kuu geeyo? ma runtaabaa anigu diyaar ayaan ahay mar kasta cali aamin xaaji. kun dahab ah ayaan kuu hayaa. dhulka aad ku socoto ayaan dahab kuugu daadinayaa. maalinta aad i raacdo kadis macaan ayaan kuu hayaa. caawa i soo raac. beenlow ayaa tahay. maqal saaxiib madaxay, ma waraabe, dhulka kula goo waraabow, beenta ka daa saxiibteenna, hilibkeeda ayaa u xiise qabsoomaha cali aaminow. wallee waa soo waalatay amiiro. halkii ayaa lagu wadaa? garan mayno. amiiro, kan waa waraabe, weji ma laha. amiiro, shayddaanka nool miyaa rabtaa inaad raacdo? ka joog amiiro, kan weji ma laha. aan ku ceshanno amiiro, ha naga dhiman. amiiro, shayddaanka nool miyaa rabtaa inaad raacdo? ka joog amiiro, kan weji ma laha. aan ku ceshanno amiiro, ha naga dhiman. amiiro waan jeclahay. xitaa haddii aan waraabe ahay, wax waan jeclaan karaa. i aamina dhallinyaro. oo haa, i xaasidina, waa wax jira. amiiro, malaha inaad gaarto carafada dambe maba rabtid. sidee ku aaminaysaa waraabe? sidee? amiiro, ha naga dhiman amiiro. amiiro, ka soo har shayddaanka nool. amiiro, waddo qaldanaya haysataa. waa inaan wax ka qabannaa. dhallinyaro, waxaan waa jacayl. haa ii baqina, waxaani waa iska caadi. cali aamin waa la jeclaan karaa. eeg siduu ii jecel yahay xitaa. sidee u jeclaan kartaa waraabe? ma ogid miyaa shakhsiga keliya ee shayddaanka arkay? ka joog oo fikir amiiro. khalaas waa kuu dhammaatay amiiro. wax kasta waa kuu samaynay annaga. waa ay inaga dhimatay. way fiicnaan lahayd in carafada qalo inta aan arki lahayn sida arrinkan. dhallinyaro isdejiya, waan xallinaynaa arrinkan. waana tusaynaa halista uu leeyahay. amiiro, iska raac walaalaha. maanta mar kale ayaa kulmaynaa, waxaasi waa caadi. waraabow, haddaad ka hari weydo saaxiibteenna amiiro, waa ku dili doonaa. car mar dambe soo laabo. amiiro, inta magaalada ku maqneen masaanaa keentay. bas weeye, waa in ilaalo lagaa qabtaa. waa inaan magaalada geynnaa. tan ma aha inaan halkan uga tagno. waan ku soo fashilmay howlgalkii. caawa waa iga badbaaday amiiro. allah, caawa ciilxuma ay haysaa. sidee saaxiib, maxaa dhacay? maxaa adoo waxba wadin inoogu soo laabatay? wax kale ma aha. waxaa la jira cawaale madoobe. isaga ayaa i diidday, iyo geelle iyo madax. cawaale madoobe, halis weeye ninkaas. arrinkan waa inaad si caqli ah u samaysaa cali aamin. wax kale ma aha. waxaa la jira cawaale madoobe. isaga ayaa i diidday, iyo geelle iyo madax. cawaale madoobe, halis weeye ninkaas. arrinkan waa inaad si caqli ah u samaysaa cali aamin. cawaale iyo madaxay, wallee amiiro, xalay waan ka gaarnay. halis ayay ku jirtay. ka warrama haddii la cuni lahaa amiiro. amiiro, hubaal caawa dib ayay u laabanaysaa oo way kulmayaan. waa inaan hadda wax kasta ogaanaa. liyo, saaxiib eeg, halkan waa halkii ay degganaayeen waraabayaasha. aaday u badan yihiin. cawaale saaxiib, kuwaan aaday isku soo qalabeeyeen. idhegaysta dhallinyaro. caawa ayaan arrinka soo gebagabayn doonnaa. hubaal subax qurux ayaan ku tashanaynaa. ugu dambayn, caawa ayaan soo kaxayn doonnaa hilibkii aan ku wada cawayn lahayn. caawa, amiiro, hubaal, caawa ayaan soo gacangelin doonnaa. cawaale saaxiib, wallaahi amiiro, caawa haddaan badbaadin weyno waa u dhammaatay. khalaas. liyo, ma fududa, balse waa mahad alle haddaan aragnay iyaga oo tashanaya. saaxiibteen amiiro, yaa halkan keenna oo indhaha u saara runtaan. waa balaayo madax adag caawa. sidee ku badbaadinaa? alla ilaahu saaxiibteenna badbaadi. markaan way ahaatay. kuwaan tiro badanaa. hilibka saaxiibteenna amiiro ma wada deeqee. sidee wax u wadaan? kuwaani waa xayawaanka ugu halista badan. koox koox ayay isku raacaan, aadna way u tababaran yihiin. dhallinyaro, amiiro markaan waan degay qalbigeeda. hubaal xitaa way ka soo hor jeesan doontaa saaxiibbadeeda kuwii xalayto iga badbaadiyey. laakiin caawa siday iga badbaadin doonaan amiiro waa la yaab midaas. ilaahow badbaadi. markaan waxay ila tahay inay caadi ugu dhammaatay amiiro. khalaas, markaan way ii caddaatay in amiiro caarafada dambe aysan gaareen. markaan waa inaan aag xidhannaa. ina keena aan kaynta oo dhan kala baranno si ay hadhow noogu fududaato caawa. amiiro, caawa allaha ku badbaadiyo. markaan waa kaa samray. gabadayaysan inaa arkin kuwan. caawa waa habeen aad iigu qiimo badan. waxaan la kulmayaa jacaylkaygii cali aamin. waa inaan aad isku qurxiyaa si aan caawa u soo jiito cali aamin. caawa waa habeen aad iigu qiimo badan. waxaan la kulmayaa jacaylkaygii cali aamin. waa inaan aad isku qurxiyaa si aan caawa u soo jiito cali aamin. ogow cali aaminow saaxiib, cidda la socota geelle iyo madaxay waa cawaale madoobe. waa mid 10 sano ka hor u talin jiray burcadka magaalada oo idil. marka iska ilaali. waa ogahay saaxiib. kani waa burcadkii dhimashada, mid ka mida manaxayaashii weynaa ee magaalada. marka immika mid deggan ayuu u muuqdaa. waan qiyaamaynaa ayaga. saaxiib, adiga saaxiibbadeenna u sheeg oo iga gaarsii. waan guulaysan doonnaa caawa. taasi waa mid caawa dhici doonta. amiiro waan keenayaa caawa. madaxay saaxiib, aan amiiro hadalkeedii ugu dambeeyaan ka dhegaysanno. ileen maba gaarayso carrafada dambe ayada. marka amiiro,
inala hadal intaadan caawa dhiman. maxaa dhacay isheeg maxaad ka soo xanaaqdeen dhallinyaro iga dabageeya aan maqlee markaan waxaa ii caddaatay inaad carafada dambe gaareen waa kuu dhammaatay amiiro. imisaan ku celinaynay imisaan isku daynay inaan ku badbaadinno adigana nama fahmaysid amiiro haddaad wax maqlayso caawa ha bixin joog. sidee yeelnaa maxaan ku samaynaa tan malaa'ig ayaa wada kamana reebi karno qalaas. amiiro allaha ku badbaadiyo. ma intaasay waan bannaxay waxaas caadi ha ii baqina anigu qof la doqomaysan kara ma ihi alla caqli ayuu isiigu kalsoonaada. wallee wadkaagii ayaa u socotaa amiiro. daaya ha qasbina runta ha soo aragto haddii ay runta ogaato ayadaaba mar dambe aaminayn cali aamin. laakiin haddii saxiibteenna nalaga cuno ka warran waa halis inaa keenaa aan aadno kaynta si aan wax kasta oo muhiim ah u soo baranno. ilaahow ii badbaadi saaxiibtay amiiro ilaahow ii badbaadi wax ma maqlayso. is-ilaaliya yaana nala arkin. waa nala arki gaaray halis ayaan geli gaarnay. caawa waa inaan nafteenna u hurnaa saaxiibteenna amiiro waa inaan badbaadinaa. hubaal waan badbaadinaynaa ha ka baqiina middaas. is-ilaali saaxiib. caawa waa inaan nafteenna u hurnaa saaxiibteenna amiiro waa inaan badbaadinaa. hubaal waan badbaadinaynaa ha ka baqiina middaas. is-ilaali saaxiib. saaxiib caawa waan soo guulaysan doonnaa marka adigu aniga ayaad garab ii ahaan doontaa oo waad ii wehelinaysaa. saaxiib amiiro waa ikan waan ku soo socdaa. hubaal cawaale waa uu fahmay qorshaheenna marka waa inaan taxadarnaa. laga yaabaa inayba hadda nala joogaan kaynta marka il gaar ah waa inaan u lahaataa adigu saaxiib ma raba inaan fashilmo caawa. saaxiib halkaan ayaan anigu kuu joogayaa si aan ula socdo halista inooga imaan karta xagga kaynta iyo cawaale. saaxiib malaha qorshihii ayay beddeleen marka waa inaan fakirnaa si aan u ogaanno qorshaha cusub ay ayagu maleegayaan. waa qasab middaase inay beddeleen qorshaha. alla saaxiibtayda maxay galabsatay maxay wax u fahmi leedahay amiiro. sidee yeelna caawa leo hoos u hadaliyaysan inaan maqlin kuwan. saaxiib amiiro way badbaadi doontaa. qoftaydii alla sidii aan kuugu xiisay haddaad ogaan lahayd. ii warran amiiro aad ayaad u qurux badan tahay caawa ina keen amiiro. ma cali aamin laakiin aan xoogaa halkaan jooga cali aamin si aan in badan jawigaan u qaadanno marka aan joogno xoogaa. hadalkaaga miyaan diidi karaa marba haddaad i raacayso jawigaaga qaado amiiro. eeg amiiro sheeko ayaan kuu sheegayaa iga dhegayso waa mid aan u qiimo badan oo xilligii aan yaraa layga sheekeeyey. waxaa jiray nin khiyaanoole ah ka soona rabay inuu khiyaanno gabar uu jeclaa. waxa uu ahaa mid mar kasta dhagar u maleegi jiray balse iyadu way jeclayd mana ay fahmi jirin inuu khiyaanayo. kadib waxaa soo baxay shakhsi dacad ah oo rabay inuu badbaadiyo iyada. waxa uu ahaa shakhsigaas mid mar kasta runta u sheega ayada isagoona dhahaya waxaad ku socotaa halis ka joog si aad u badbaado. amiiro inaa keen aan galno kaynta si aan kuugu soo tuso gurigayga. ma sidaasaa ina keen cali aamin. waan soo guulaystay waan soo qabtay waana keenay saaxiibkaygiiyow soo baxoo ila arag doqontaan amiira. sheekada aan kaaga sheekeeyey kan wax qiyaamayey waa aniga doqonta la qiyaamayna waa adiga. shakhsiga daacada ahna waa liyo alla maxaan u aamini waayey liyo. sheekada aan kaaga sheekeeyey kan wax qiyaamayey waa aniga doqonta la qiyaamayna waa adiga. shakhsiga daacada ahna waa liyo alla maxaan u aamini waayey liyo. waxaan u soo wacayaa dhallinyarada kale marka saaxiib inoo ilaali cashadan oo ha inaga dayacin. igu halee cali aamin waan ilaalin. kuwaani waa xayawaanka ugu halista badan koox koox ayay isku raacaan aadna way u tababaran yihiin. saaxiib waxay la tahay inay qorshahooda beddelaan. cali aamina uu horay u baxay. aamusa geelle iyo madaxay iminka waxaa imaaday cali aamin miyaad aragtaan aan dhegaysanno waxa uu dhahayo. waan idin imid dhallinyaro amiiro waan keenay oo waxay inala joogtaa kaynta markaa ina keena aan aadnee dhallinyaro. alla amiiro hadda ma sidaas ayay ugu dhammaatay. amiiro hadda ma naga dhimatay. leo aamus hubaal weli waa ay nooshahay amiiro. inaa keena aan kaga hormarnay inta aysan gaarin ayaga marka soo baxa inaa keennaa caawa waa inaan nafteenna u hurnaa yaa la baqin. madaxay saaxiib imisaan u digayey imisaan lahaa amiiro arag halista
iminka amiiro caawa halis weyn ayay gashay leo waan badbaadinaynaa yaa halkaas jooga waa inaan dib u laabtaa si aan cali aamin ugu sheego arrinkan saaxiib awe amiiro ma meel kale ayaad geysay oo aad ku haysaa inoo sheeg saaxiib cali aamin waa iga baxsatay amiiro sidee kaaga baxsataa sidee maxaad samaynaysay markii ay kaa baxsanaysay saaxiib iminka inaa keena aan soo baarnay amiiro yaa i badbaadiya liyo madaxay cawaale idin mee kaala i badbaadiya yaa i badbaadiya liyo madaxay cawaale idin mee kaala i badbaadiya yaa i badbaadiya liyo madaxay cawaale idin mee kaala i badbaadiya ma raba inaan halkan ku dhinto haa la baaro amiiro waa inaan helnaa isla caawa amiiro ma rabo inay iga badbaado amiira caawa ilaa waaga uu ka baryayo yaa la seexan ilaa waaga uu ka baryayo maxaa halkan i keenay maxaanu aamini waaye liyo maxaanu arki waaye ilinta saaxiibkayga liyo waa inaad baartaan amiiro ma rabo inay amiiro caawa inaga badbaado haddii kale cali aamin waa uu inagu xanaaqayaa geelle iyo madaxay alla mahaddii amiiro way baxsatay inaa keena aan raadinay inta aysan waraabayaasha inaga hor helhelin amiiro ku aaway saaxiib waan joognaa amiiro saaxiibtaydii wanaagsanayd waan kuu imaannay waad badbaadaysaa amiiro mana maqashaa saaxiib codkeenna ma maqashaa amiiro lagama yaabo inaan halkan ka tagno ilaa aan adiga ku badbaadinno good kasta xitaa ha la galo oo ha la baaro dhallinyaro waa inaan helnaa amiiro ma rabo inaan inaga dhimato waan ku baryayaa nala hadal oo halkee baad joogtaa si aan kuu badbaadinno liyo adiga ayaa saxnaa kan waa waraabe lama aamini karo waa sacawaale waxay ahayd inaan hadalkiina maqlo waa ku fahmi waaye madaxay sidaad igu naxaysay ma rabo inaan dhinto ma rabo inaan kayntaan ku dhinto ii badbaadiya ma rabo inaan dhinto ma rabo inaan kayntaan ku dhinto ii badbaadiya dhallinyaro aan dhaqsanno inta uusan roobka soo xoogaysan haddii kale raadka oo dhan waa uu tirmayaa cawaale liyo ka jooga halis ayaad ku socotaan roobkaani waa uu soo batay aan joogno inta uu yaraanayo isdejiya cawaale isdeji waan badbaadinaynaa amiiro leyo adna joog sidee isku dejiyaa ma amiiro ayaan waraabayaasha ku daynaa madaxay isdeji liyo annagoo dhan ayaa ka murugsan amiiro halkeen ka galaa roobka yaa i caawinaya oo i sheega meel aan roobkan ka galo lugta ayaan ka jabay sidee ku badbaadi doonnaa sidee caawa u badbaadi doonnaa good kasta xitaa ha la galo oo ha la baaro dhallinyaro waa inaan helnaa amiiro yaan la istaagin yaan loo joojin roobka ha la raadiye amiiro dhaqsada ii baara waa inaan helnaa iyada nafteenna xitaa waa waaweyn karnaa laakiin lagama yaabo inaan amiiro kaynta kaga tagno waan badbaadinaynaa waa ballan amiiro waa ballan aan kaa qaaday saaxiibtayda lagama yaabo inaan sidaan ku istaago aniga inaa keenaa nafteenna xitaa aan u hurnee amiiro saaxiibkaygu maxaad qof dayacan tahay bal sidee amiira kaaga fakatay miyaad seexatay sidee arrinkan u aaminaa liyo cawaale madaxay idin mee caawiya meeya saaxiibadaydii wanaagsanaa i caawiya
halkaan ha iga tegina. sidee tahay xaalkaagu waa sidee hadda ma fiican tahay Waraabayaasha inay i cunaan ayay rabaan. Iga badbaadi. sidee tahay xaalkaagu waa sidee hadda ma fiican tahay Waraabayaasha inay i cunaan ayay rabaan. Iga badbaadi. kaalaya ila arka kani waa raadkii amiiro hubaal meelahan kama agfoga ayada ina keena ha la isqaybiyo oo si fiican ha loo baaro hareeraha ma i maqashaa hubaal hadda adigu waad badbaaday noloshaada waa amni ha baqin markaa Yaa tahay adigu? Iga badbaadi waraabayaasha. waa saaxiibkaaga cawaale amiiro walow ay khatartu badan tahay balse iminka adigu meel amni ah ayaad joogtaa I badbaadi cawaale. Saxiib, i badbaadi. ku aaway saaxiib cawaale maxaa kuugu dhacay kuma aragno cawaale saaxiib adna iminka kayntaan miyaad ku dhex dhuntay saaxiib cawaale ku aaway mana maqashaa saaxiib madaxay iminka halkii cawaale ka baarnaa isagiina kaynta ayuu ku dhex lumay maxaan samaynaa saaxiib madaxay saaxiib cawaale aad ayuu uga fakarayay amiiro taasaana keentay inuu hadalkeenna maqli waayo ileen cawaale intaan magaalada ku maqneen isaga ayaa ahaa kan amiiro aad uga warqabay in badan waan kuu imid saaxiibtayda isdeji oo ha baqin adigu hadda aniga ayaad ila joogtaa Cawaale, saxiib, lugta ayaan ka jabay. amiiro soo bax mar kasta anigu waan ku heli doonnaa aniga ayaa naftayda kuu huraaya amiiro inta aan noolahay lagama yaabo in waraabayaashu ay adigu ku dhibaateeyaan sidee ilaa hadda aan u aaminaa in saaxiibkaygii weynaa uu qaladkan oo kale uu ku dhacay saaxiib iga raalli noqo in badan tani weligay hore iguma dhicin marka cali aamin iga raalli noqo adiga saaxiibkayga ayaa tahay marnaba qalad ma lihid waa ballan saaxiib waaga inta uusan baryin amiiro gacantaada ayaan soo gelin doonnaa taasi waa ballan uu kaa qaaday saaxiibkii ilaa yaraanta saaxiibkeenna cawaale hubaal baaq ayuu inoo samayn doonnaa marka waa inaan halkan joognaa yaanan fogaan saaxiib madaxay cawaale hubaal saaxiibkeenna si uu inoo soo helo waxa uu inoo samayn doonnaa baaq taasi waan ku kalsoonnahay marba haddii aan helnay amiiro ayna aad u liidato lugna ay ka jabtay waa inaan si degdeg ah halkan ugu yeeraa saaxiibadayda geelle iyo madaxay soo hag saaxiib soo hag ayaga waa saaxiibadayda oo meeshaan keen war waxaan rajaynayaa inuu baaqayga gaari doono saaxiibadayda leeyo iyo madaxay saaxiibayaal soo dhaqsada amiiro halis ayay ku jirtaa waa uu inoo imaaday baaqii cawaale inaa keen aan raacne madaxay waa uu inoo imaaday baaqii cawaale inaa keen aan raacne madaxay ogow baaqa cawaale inta aan raacayn waxaan geli karnaa halis xagga cali aamin ah saaxiib madaxay saaxiib aan iska war hayno maadaama uu cawaale inala joogin alla ilaahow saaxiibteenna amiiro badbaadi caawa culays ayaan ka dareemayaa kaynta malaha halistu waa ay inoo soo dhowaanaysaa saaxiib madaxay marka aan baaqa qarinno si aysan inoo dareemin inaan baaq raacayno annaga saaxiibtayda amiiro marba haddaan kula jooga haa cabsan marnaba teeda kale aad ayay lugtaadu ku dhaawacan tahay marka ha isdhibin hayee iminka ma waxaad rabtaan inaad amiiro iga badbaadisaan sidee ugu fikirteen middaas ii sheegaa sidee arrinkaas ugu dhiirateen labadiinna liyo iyo madaxay oo maxay idinla noqotay inaan idinka baqayo oo welibana aad si raaxa leh ku mari kartaan aniga kayntayda oo ma ogiddiin miyaa in hilibkiina uu ka macaan yahay kan amiiro oo aana isla caawa idinku cashayn karo balse hadda anigu taas ma rabo ileen idinku waxaad saxiib la tihiin cawaale waana sababta aad iga badbaadaysaan oo ma rabo inaan xanaaqa cawaale aad u kordhiyo balse hadda waan idin digayaa halkan yaanan mar dambe idinku arkin dhallinyaro ha la fasaxo wallee caawa khatar ayaan galnay
ilaahay baana badbaadiyey imika ina keen aan baaqa raacnee si aan cawaale ugu sheegno. kuwan aad baan uga shakiyey wallee waxbay qorsheenayaan ilaa hadda waan fahmi la'ahay. saaxiib kuwan aad ayaan uga shakiyey marka waa inaad daba gashaa adigoo aanan ka harin ogowna yaysan ku fahmin ayaga. amiiro adigu weligaa isma beddelaysid imika xitaa hadallada saaxiibbadaada inaad maqasho waa diiday balse imika annagu kaama quusan oo ugu dambayn waan ku soo helnay. weligaa xitaa markii aad yareed ayaad sidaan u dhib badneed amiiro. xitaa liyo in badan ayaad dhibi jirtay adigu. cawaale saaxiib adiga liyo iyo madaxay waxaad tihiin halyeeyo aan ku soo dhex koray oo aan ku faano. yaa halkaan joogaa ma maqlaysaa in lagu jiro ayaan u malaynayaa saaxiib balse yaa ku jiri kara armay waraabayaasha yihiin. soo dhowaada oo soo gala in badan ayaan idiin sugayey. soo dhowaada oo soo gala in badan ayaan idiin sugayey. yaa tahay adigu maxaadna naga rabtaa haddii aad rabto inaad inala hadasho u soo bax dibadda. waa aniga waa saaxiibkiinna cawaale miyaad iga baqdeen geelle iyo madaxay oo ma sidaan ayaad amiiro ku badbaadin lahaydeen. saaxiib welwel kaama muuqdo mid deggan ayaad u muuqataa maxaa dhacay teeda kale saaxiib amiiro waan weynay aadna waan u niyad jabnay. inta uu waaga baryin haddii aanan helin amiiro saaxiib cawaale way inagu adkaanaysaa inaan u laabanno xaafadda oona u sheegno hooyada iyo aabbaha amiiro. marka maxaan samaynaa saaxiib cawaale markii aad inaga soo tagtay waan baqnay oo waxaanba moodnay inaan dib kuu arkaynin balse alla mahaddii waan ku aragnay. inta aad waddada soo socoteen oo aadna baaqa soo raacayseen waraabayaal jidka ma ku soo aragteen ii sheega geelle iyo madaxay dhaqsada. haa saaxiib cali aamin ayaa jidka inoo galay kadibna aad ayuu inoogu booteeyey kadibna ma idinsoo fasaxay ii sheega dhaqsada ma idin oggolaaday inaad soo baxdaan. haa saaxiib cawaale waa uu ina soo fasaxay oo waxba nama yeelin isaga. shirqool ayaan ku dhacnay waxa uu idinsoo fasaxay inuu ina ogaado. arrin ayaan idin sheegayaa amiiro waan helay oo aniga ayay ila joogtay oo halkan ayay ku jirtaa balse qorshaha waa inaan beddelnaa isla hadda. saaxiibtayda maxaa ku dhacay iminka xaalkeeda waa sidee cawaale. amiiro saaxiibleo lugta ayay ka jabtay aadna way u liidataa marka iga dhegaysta qorshaha cusub. hubaal amiiro waan ku helnay markaa soo bax oo godka ka soo bax inta aan gudaha kuugu soo gelin. waad soo bixi weysay markaa waa ikan waan soo galay. amiiro caawa in badan ayaan ku baarnay balse ugu dambayn ma awoodaan inaad gudaha soo gashaan inta iiddaan ku dhawaaqin magaca amiiro. wasaqdii cali aamin dhimashadiina ayaad soo doonaateen caawa waa ballan inaa idinka aaraa wixii aad u geysateen amiiro. annagu dagaal umaanan imaan cawaale balse waan ognahay in amiiro aad halkan ka kaxaysay oodna ku dartay leeyo iyo madaxay. idhaagaysta liyo iyo madaxay waxaan idinsii diyaariyey gaadhigii aan amiiro lagu qaadi lahaa marka maadaama aan shirqool ku dhacnay waa inaad idinka amiiro kaxaysataan oo aad magaalada geysaan. miyaan saxnayn cawaale. saaxiib maxaad u daawanaysaa maad wax ka qabato inta aysan amiiro magaalada geyn kuwaan cali aamin dhaqso wax samee saaxiib. ka joog saaxiib daahaa qaataan dhaawacooda laakiin iminka waxay u moodaan inay inaga badbaadayaan marka ay tagaan magaalada taasina waa ay ku qaldan yihiin waayo iminka waa xilligii. master sinko waa wakhtigaagii. yaa weeye master sinko cali aamin. cid kale ma aha waa adeerka leeyo. master sinko waa wakhtigaagii. yaa weeye master sinko cali aamin. cid kale ma aha waa adeerka leeyo.
dhakhtarka. dhakhtar inoo badbaadi saaxiibteenna amiiro. xaaladda saaxiibteenna amiiro sidaan waa uu ka fiicnaan doonaa liyo saaxiibkaygii. meeye cidda la socotay bukaanka? waa annaga dhakhtar. ka warran saaxiibteenna amiiro. bukaanka aad ayuu u liitaa, dhiig badana waa uu ka baxay, marka xaalkeedu ma sahlana. u duceeya maadaama ay halis ku jirto. wax kasta ha kuugu qaadato, waa inaad badbaadisaa saaxiibteenna amiiro. ilaan hadalkan hooyadeed iyo aabbaheed ma yeelayaan. saaxiib cali aamin ma lagu kalsoonaan karaa? master sinko ii sheeg saaxiib ileen, waxaan khasaarinay fursad weyn. ayagoo bilaa cawaale ayay ahaayeen. master sinko waan ku kalsoonahay saaxiib, waan ku kalsoonahay saaxiib. hubaal amiira mar kale ayuu gacanteenna soo gelin doonnaa. saaxiib ina keen aan aadno raggii kale ee aan xalay u dirnay cawaale. marka ina keen saaxiib. master sinko waxaan farriinkaaga wadaa saaxiibkaaga hore ee cali aamin. ii akhri farriinta saaxiibkayga cali aamin. saaxiibkaygii hore master sinko, halyeygii aan in badan garabkiisa soo ahaayow, arrin ayaan rabaa inaad ii qabato. waana arrin aan rabo inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad ii qabato. master sinko waxaa magaalada loo soo qaaday ugaar aan u gaaranayay, marka waxaan rabay inaad dib iigu soo celiso. waan kuu digayaa hadalkan oo kale marka aad hor taagan tahay master sinko ha ku hadlin, waa haddii aad naftaada jeceshahay. waa wakhtigii aan aadi lahaa kaynta, marka idinka dib ugu laabta magaaladan. boos armay wax ku soo gaaraan? haa ii baqina dhallinyaro. halkaasi waxaa ii jooga saaxiibkayga hore ee cali aamin. marka idinka dib u laabta oo aada magaalada. boos si nabad ay noogu soo noqo. kayntu aad ayay u qabowdahay. sidee dhaawac loogu hayn karaa? master sinko saaxiib in badan ayaan ku sugaayey. markaa aaway amiiro uma jeeddee? orda dib ugu laabta magaalada. dhallinyaro isdejiyaa. way caafimaadaysaa amiiro. niyadda khayr u sheega. maxaa ku dhacay ayada? maxaana sababay inuu soo gaaro dhaawacaan aadka u daran? ii sheega dhallinyaro. maali ayadu waxay jeclaatay balaayo aan arxan lahayn, ka soona sababay inuu soo gaaro dhaawacaan aadka u daran ayada. waxa uu ahaa waraabe rabay inuu ayada jacayl khiyaano ah ku beero, kadibna ayada cuno, balse inta ay ka baxsanaysay ayay dhaawac martay. sidee u ogaan weydeen marka ay waraabaha jeclaanaysay ayada? maxaad uga celin weyseen dhallinyaro? ileen waraabaha waa halis. in badan ayaan u dignay ayada, balse wax ma aysan maqlin oo waa ay iska dhaga tirtay xaqiiqada oo nama aaminin ayada. oo waan gartay, waxaani waa jacayl. haddii uu qofku aad wax jeclaado, marnaba kama fikiro inuu qofkaasi xun yahay iyo in kale, ileen jacaylka uu u qabo ayaa ka tan badan. wax kasta ha ahaatee immika waad daalan tihiin, mar la iska nasta. maya maali, waxaan soo baaraynaa saaxiibkeenna cawaale, kama maaranno isaga. wax kasta ha ahaatee immika waad daalan tihiin, mar la iska nasta. maya maali, waxaan soo baaraynaa saaxiibkeenna cawaale, kama maaranno isaga. caawa hurdo ma jirto. waxaan u baahannahay in isla caawa la ii soo baaro geelle iyo cid kasta oo la socota. dhaqsada ha la hawlgalo hadda. cali aaminow, aawee awooddaadii iyo kartidaadii aan kuugu ogaa. sidee arrinkan yar aad u xallin weyday? i sheeg saaxiib cali aamin, maxaa kugu dhacay? boos wax kale ma jiraan. waxaa ina dhibay mid madow oo cawaale la dhaho. waxa uu inala joogaa kaynta. isagu waa kan in badan inaga badbaadiyey geelle iyo amiiro. ma adigoo cali aamin ah ayaad ka baqaysaa mid yar oo kaynta kula jooga? cali aamin, sidee u suurtagelaysaa? isheeg haddaba, anigu tan waan aamini la'ahay.
cawaale ku aaway saaxiib halkaan yaa i keenay aniga waa alla mahaddii mar haddii dhibaatadii darneed aad ka badbaaday amiiro hadda sidee dareemaysaa yaa ku baray magacayga halkaana yaa i keenay aniga hubaal waxaad haysataa saaxiibo ku jecel kuwasoona in badan ka murugoonayay xaalka aad ku jirtay adiga ma cawaale ayaad ula jeedaa maya waxay ahaayeen liyo iyo madaxay runtii aad ayay kaaga murugeen xaalka aad ku jirtay aaway hadda ayaga halkii ayay aadeen isheeg amiiro immika ayaga waxay u baxeen inay soo baaraan saaxiibkood cawaale si ay u soo helaan isaga booskan ma fududa waa halis in badan ayaan isku qabannay kaynta mar kastana annaga ayaan ku jabaynay dagaalka marka cawaale madoobe ma fududa boos oo aniga igama baqaysid miyaa isheeg cali aamin boos waan kaa baqayaa laakiin cawaale dagaalyahan fudud ma ahan waa dilaa arxan daran saaxiib madaxay inta aysan waraabayaasha ina arkin ina keenaan baarnaa cawaale waxaa laga yaabaa inuu joogo meeshii uu hore u joogay isaga waan ku raacsanahay geelle waxaan ka baqayaa leyo saaxiib in waraabayaashaas ay dhibaato gaarsiiyaan saaxiibkeenna cawaale ka joog saaxiib cawaale waa adke sidaa uma fududa in la qabto cabsida laguu sheegayo waa tan adiga kaa muuqata geesinimada la sheegayo waa tan aniga iga muuqata cali aamin haddaba la soco aniga jiljileec ma aqaani liyo isqari saaxiib yaysaan inaa arkin waraabayaashan hagaag saaxiib adna isqari wallee waa yaab ma saaxiibkeenna cali aamin ayaa sidaan u baqaya oo weliba madaxiisa hoos u geynaya isagoo baqsan boos inaa amar annaga amarkaaga dartii kaynta oo dhan waan gubi doonnaa taasi waa ballan aan kaa qaaday boos master sinko i dhegaysta dhallinyaro kani waa master sinko waa mid arxan daran markaa waa iga talo qaladaadkiina yareeya haddana isku ballaariya kaynta saaxiib madaxay master sinko waa adeerkayga maxaa kaynta keenay ma waraabayaasha ayuu hadda la safaan yahay allah ina keen aan cararnee inta aysan ina arag saaxiib madaxay master sinko waa adeerkayga maxaa kaynta keenay ma waraabayaasha ayuu hadda la safaan yahay allah ina keen aan cararnee inta aysan ina arag magaca adeerkaa kuu bixiyey waad iska beddeshay balse hadda sidee iga badbaadi doontaa hubaal mar un gacantayda waad soo geli doontaa amiiro hadda sidee tahay xaalkaaguna waa sidee ma isku dayi kartaa inaad socoto adigu ma awoodo waxaan ka baqayaa inay lugtaydu dib dambe aan ugu soconaynin magacaygu waa maali kan adiga ku daaweeyey marka niyadda khayr u sheeg marnaba haa qusan lugtaadu waxaa soo gaaray dhaawac aad u yar muddo ka dibna waad bogsanaysaa marka niyadda khayr u sheeg amiiro waad mahadsan tahay maali sida aad ii daawaysay iyo sida aad iiga taxadaraysid maya amiiro keliya waan ku badbaadiyey leyo saaxiib iminka ma adeerkaaga ayaa kaynta nala jooga welibana annagana raadinaya saaxiib soo dhaqso aan cawaale raadinay aamus hoos u hadal saaxiib yaysan ina maqlin kuwaan allah caawa yaa iga nasiib badan hawl aan qaban waayey in badan ayaa caawa si fudud iigu qabsantay leeyo iyo madaxay mar kale ayaan idin helay markaani sidee iiga badbaadi doontaan ileen cawaalihii aan idinkaga baqaayey waxaa immika laga yaabaa inuu kaynta ku dhintay leyo arrin farxad leh ayaa ku wadaa waxaana ay tahay in kayntan uu nala joogo adeerkaaga master sinko hubaal aragtidaada wuu ku farxi doonnaa ma og tahay haddii aad igu soo wareejin lahaydeen amiiro uusan master sinko imaan lahayn kaynta iska daaya amiiro hadda naftiina ayaaba qiilqiil ku jirta sidee cawaale ku dili kartaa oo ma waxaadna moodday inaan ku aaminayno adigu beenlow ayaa tahay dhallinyaro ii soo qabta labadooda maxaa idinku dhacay isheega oo amarkayga u diidaysaan yaa ku dhiiran kara inuu asxaabtayda dhibaateeyo oo ma waxay idinla noqotay
in asxaabtayda meel cidla ah uga tegayo aniga? idinku waxaad isku daydeen inaad iddishaan, laakiin xilliga saxda ah halyeygu waa kan dib u soo laabta si uu u badbaadiyo asxaabtiisa. jaanis ayaan idiin siiyey inta aanan wejigayga beddelin. orda, iga hor dhaqaaqa, wasaq yahay dhagarta badan. jaanis ayaan idiin siiyey inta aanan wejigayga beddelin. orda, iga hor dhaqaaqa, wasaq yahay dhagarta badan. halkan maxaa idinku soo celiyey kaynta? soo idinma dhihin geeya magaalada? maxaa dhacay? isheega hadda. saxiibkeenna Cawaale, waxaan geynay afka hore magaalada hosbitaal ku yaalla, laakiin waxay inoo sheegeen inaan magaalada geyno Amiiro. hay, maxaad u geyn weydeen magaalada? maxaa halistaan idinku soo celiyey saaxiibayaal? isheega, ma naftiina ayaad nacdeen? maxaa dhacay? saxiib, magaalada waan geyn lahayn, laakiin halkaas waxaa jooga adeerka Leeyo, kaas oo ka daran halista ka jirta kaynta. marka sidaas ayaan u soo laabannay. bal ka warrama, haddii aan idinka soo gaari lahayn, soo halistii aad ka soo cararteen mid ka daran soo miidan gasheen? Cawaale, waxay ahaataba, hadda Amiiro meeday? Cawaale, Amiiro way fiican tahay hadda, waxaana inoo daaweeyey Maali, runtiina waa mid aad u wanaagsan, oo immika isaga ayaan Amiiro kaga soo tagnay si aan adiga kuu raadinno. kuwaani hubaal inagama harayaan. marka inaa keenna oo isoo tusa Amiiro, inaan soo arko ayaan rabaa ayada. dhallinyaro, Cawaale iyo asxaabtiisa indhaha ku haaya. meel kasta ay marayaan ogaada, yaysan idin dareemin. keliya korka ilaaliya. saaxiib, waa inaan degdeg u gaarnaa Master Sinko, waa inaan u sheegnaa in Cawaale uu soo laabtay. Cali Aaminow, waxaan rajaynayaa in hadalka afkaaga ka soo bixi doona uu noqdo mid naftaada iga badbaadin doona. marka hadal aan ku maqlee. kuma maqlo. ma hadalkii ayaa kuugu dhegay Cali Aamin? ila hadal oo iga badbaadi noloshaada. dhaqso hadal Cali Aamin. boos, waan soo helnay, laakiin waan awoodi weynay inaan soo kaxayno ayaga oo aan halkan keenno. marka sidaas ayay wax u dhaceen. oo immika ma waxaad ileedahay waan soo helay? balse inaad soo kaxaysid waad awoodi weyday. marka isheeg Cali Aamin hadda, sidee u awoodi weyday inaad soo kaxayso? boos, waxaa inaga badbaadiyey Cawaale Madoobe isagoo dib u soo laabtay mar kale. oo hadda ma waxaad ileedihiin idinkoo 20 waraabe ah ayaad ka soo cararteen hal mid? ma sidaan ayaan kaynta idinkugu dhiibay Cali Aamin? boos, ma awoodno inaan la dagaalanno balaayadaas madow. Cali Aamin, ma garanaysaa Kuuba? aqoona ma u leedahay? haddii aadan sida ugu dhaqsiyaha badan iigu keenin geelle iyo ciddii la socotaa, ogow, kayntan waa kaa wareejin doonaa. waa ballan, waan kuu keeni doonaa boos. kaynta ha iga wareejin, waa iga codsi. waxaan ku siiyey fursad kale, adigoon waxba wadin ha ii soo laaban.